qaabilsanahay insha Allah soo dhaweynta laakiin marka hore waxaan ku furanaynaa aayadaha quraanka kariimka ah waxaan u yeerayaa Sheekh Maxamed soo dhaw insha Allah Sheekh Maxamed Shirwac. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. مر لبعض ولا ليال سود وهذا magacayga waxaa la yiraahdaa Faysal Guureeye saan hore idinku sheegay barnaamijka waxaan uga aadanahay soo dhaweyntiina maadaama odaga Saciid Soona saaxiibkay adeerkay sagootintiisii weeyaan kulankan asagaan ku sagootinayna marka anigu wuxuu igu sharfay inaan aniga idin soo dhaweeyo barnaamijka markuu dhamaadana aan xiro waxaa MC noo ah Dr. Thabat oo insha Allah barnaamijka noo xiriirin doona mar labaad waan idin soo dhaweynayaa والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مروين مرتدى هلكن كسو قيب قشي رقي دمر بله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر لبعض كسو دواذا وانكم مهدسنتين سيدا wanaagsan ayaad nooga aqbasheen dacwada aan idin soo dirnay si aad uga soo qayb gashaan xafladan lagu sagootinayo walaalkeen Saciid Axmed Soona marka waxaan filayaa dhowr qofood ayaa halkan igu qoran hadalka halkan ka hadli doono aan ugu yeerayo maxaa ugu soo horeeyo Sheekh Bashiir Maxamed Nuur Qawi kusoo dhawow maxaa igu xiga ay sii diyaariyaan Sheekh Abubakar Sheekh Xuseen waxaa saddexeeyay Sheekh Saciid Raage. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله المستكملين الشرف إن شاء الله. أحبتي في الله شيخ سعيد زون ما شاء الله وان كهل لكرا more than 1 hour runtii وبيدي أي قرآن كقبل الله ولا فقر ذلك إن شاء الله واني وكرنا ما شاء الله بالتحفيظ وكب حجر every day أسي أصحابتي سي الله سبحانه وتعالى هكو أنفع إن شاء الله تعالى. marka ugu horeysa Ilaahay ma iskale meeshan isku keenay Saciid horta waxaan leenahay jazakallahu khayran xadiiskii nabigu wuxuu ahaa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu yani wa in lam tukafi'uhu fad'u lahu qofkii wanaag idin sameeya abaal mariya hadeedina abaal marin karina u duceeyaan marka horta u duceynayna insha Allah ta'ala Saciid aniga waxaan isku barnaa shaqada runtii dadkana waxaan ugu jecelahay qofka aan isku baranno shaqada danta yani marka waxaan u maleynaa markii ugu horeysay child aid nin Soomaaliyeed oo caruurta laga qaatay baan Saciid ku kulanay yani marka intaas wixii ka dambeysana runtii shaqooyin badan baan isla galay yani maragtay marka waxaan leenahay jazakallahu khayran qofku waqtigiisa waa raaxaysan karaa hadduu rabana mujtamaca ayuu u qaban karaa ikhwaani waxaan idin sheegayaa waqtigaagu wuxuu baraka leeyahay khayr leeyahay marka dadka aad u adeegtid yani maragtay dadka dhiban markaad farax gelisid dadka dhiban danahooda aad la shaqaysid intana waxa laga yaabaa qof walba inuu meel ku fiican yahay waana waa idin baahanahay imaada masaajidka imaada ka soo qayb gala maaragtay qof walba goonidiisu u haya laakiin maanta waxa la soo gaaray markaan iskaashan lahayn oo ra'yiga isku darsan lahayn yani maaragtay ma sha Allah Saciid Ilaahay khayr siiyo kalimad baa jira aan ku kaftami jirro oo dhijiro Saciid jihaad baan ku jiraa aan ku dhimanna annagoo ku jira shaqadan yani maaragtay waa jihaadka dhabtaana waa kan ummadda oo wax loo qabto qofkii dhiban oo dhib kale la xalliyo taasaa runtii loo baahayaa maanta meesha aan ku noolahay yani maaragtay jecelahay horta dadka halkan jooga ee qamaamuurta iyo marwooyinka halka fadhiya horta assalaamu calaykum waraxmatullah kabacdina bal miiskaaga cidda ku ag fadhida eeg qofka ku ag fadhiya iyo qiimuhu leeyahay eeg
haddaad saa u eegtid miis walba markaad midigtaada eegtid ama bidixdaada eegtid waxaa ku ag fadhiya tiir oo ka soo jeeda meel hadduu noqdo xaafid likitaabillaah hadduu noqdo imaam iyo sheekh hadduu noqdo siyaasi hadduu noqdo businessman hadduu noqdo oday haddii baharadaha eega intaasoo qofna waxay u soo joogsadeen waa siciid ilaahay subxaana wa tacaala ha barakay taasi waxay ku tusaysaa miisaanka iyo qiimuhu qofku uu leeyahay hadduu qof biririfow maanta siciid yahay laa samax allah cid ismay soo hortaagteen cidina uma timaadeen laakiin miisaanka waa ka ilaahay subxaana wa tacaala ifii aakhirana ha barakay asaga iyo tafiirtiisa iyo cumrigiisaba xaqiiqatan inaan nala siiyo 5 mirir waxaan u arkaa ijxaaf ظلمي بانو أركا وايو إن وداد يوم ما كرفوا مرتو ولا كلفوجية وكسونا داتا لكن أنا لردو 5 مرير كو وصفي أما 5 مرير كجب حوار سعيد أحمد أرتا مها تاس عدالة وايو لقيا أبو هدو إنه أضنيم كو قيمين لهين أو حدود كأضنيم دو وكو كان لها إنه هذا كسوكو بلها haddii aynu ku qiimeyn lahayn social iyo serviceka ummadda u qabto 5 mirir way ku filaan lahayn haddii aynu ku qiimeyn lahayn bulshada iyo meeluhu kaga jiro iyo siyaasadda qayb walba 5 mirir ku filaan lahayn laakiin waxaynu hortaagan maanta nin xuduud walba dhaafay oo xuduudkii reerka dhaafay oo xuduudkii degmada dhaafay oo xuduudkii siyaasadda dhaafay oo xuduudkii dhalinyarada dhaafay oo xuduudkii dumarka ma sha Allah social service dhaafay xageed ka qabataa marka qofka xageed kaga bilaabi ina marka 5 mirir la yiraahdo waa dulmi hortaas ogsanaada inta shaqo oo hayo oo habeenkii hordada seejisa oo inaka inoo hayo lama tirin karo marka horta waxaan leeyahay waxaanu ku oranaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala haka abaal mariyo ifka iyo aakhiradaba wixii aad qabatayna deerta waxna loo sheegay qofka hadii la amaano ina wajiga ciid lagaga sahido ayaa inoo sunnaa laakiin amaaha laakiin waa i'tiraaf lil haqq maxaan hadda soo dhaweynayaa injineer Axmed Yuusuf waxaan qirayaa doonaya halkaan ka qiro intaan ka aqaano Dr. Saciid mideynta intaan joogay Saciid wuxuu ahaa nin aan in badan kula kulmay xafiiskiisa marxatana ka in badan waxa leenahay maxay tahay arrimo mar loo waayay markii arrimaha qaarkood isku murgaan in la xalin waayo nin loo yimaado marka xaliya ama loola tagayo ahaa inta halkaas ka gudbaya saddex arrimood ay soo khuseeyo aniga wanaag uu sameeyay waan idin sheegaya oo markuu horeysa waxaan idin sheegaya ilmaan dhalay wiilan dhalay ayaa wuxuu ka mid ahaa carruurtii magaaladan lagu laayay 2 sano ka hor marka Saciid aad buu caawiyay intii ka horeysay waad la socotaan dhammaantan carruur baan wada leenahay marka wiilashu khaasatan lama socono waxa fara badan oo qarsoon baa jira oo aynan ka warhaynin iyagu ay og yihiin kuna sheegi maayaan intii aan wanaagsanaan dhahay ku fiicnayaan aad baan u daba socon jiray laakiin waxa fara badan markii ogaaday meeshan ilaahay waxaan keenana dabadna freedom buu helay oo wixii markaa ilaahay u dooran buu sameeyay marka intii una 20 sano gaarin dambiyada maana aqoon dambi buu galay sida la sheegay min askari soo wacay maalin anoo ilmo yar oo dhalay haya wuxuu wiilkaagii waanu qabanay iskuulkiga soo wacay waxaanu inayna xabsiga waxaana muxuu sameeyay wuxuu yiri robbery uu sameeyay markaasna muxuu haday marka robbery waxaan u haystaa dacwo waxaan ma aqaanay inuu bangi dhacay markaasna ku ma bangi buu dhacay markaasna ma dhicin markaasna muxuu sameeyay markaasna nin buu isaga mid kale waxay ka dafeen wiil way ka dafeen alaab markaasna no problem taan xalleena dhibaato ma don't worry constable bay la hadlay maqtay nin askari weyn bay la hadlay marka wuxuu maxad ku hadlaysa ma garanay haddaad kuma afgaranaya waxaad igu timaada 41 division meeshii baan tagay waa la isfay nimankii baan saf garan weynay waxaa la the intensity-ga iyo the level safar arinta ay leedahay aad u weynaa ana maana garanayn inkastoo haddana dib kaga kordhiyeen maxay tahay assault waxaana wixii markii ugu horreysay weeye marka 20 sano muuna gaarin arrintii waxaan saan u furdaameen garan waayo ugu adkaatay
dabeedna waxaan wado siciid baan markii dambe aakhirkii dambe aan u yimid waxaan siciid arrintaas jirta bal ka waran isagoon juuqii jaaqay oran buu telefoon ku dhuftay nin loo yara ayuu la hadlay wuxuu ninkaasaa ku imanaya adeer baan u ahay waxaan kaa codsanaya wax allaale wixii aad u qaban karto u qabo biliis saasaan kaa codsanaya ninkii baa ballan ii qabtay ballankii baan ku tegay meeshii anigii xaaskii aa israacnay iyo wiilkii baa tagnay siciidna markaa mar dambana israacnay isna ninkii wuxuu yidhi waxba lacag idinka qaadi maayo waxaan samaynaynaa haddii bidmo arrintan waynu gelaynaa marka wixii ka soo baxay waynu eegi sanad baa arrintii socotay wiilkii waa la xidhay hadda waa la soo daa waan soo daynay waan soo dambaynanay adoo arrintii waxay sanad socotay maalintii u dambeysay ayaa maxkamadda isla fuulay nimankii waxay propose gareeyeen ninkii prosecutorka oo hilidiga ku ah wiilkayga wuxuu yidhi aynu arrinta ka dhigno 5 daqiiqo oo wiilkaa uga qaato 16 bilood oo proportional waanu diidnay maalintii mara soo noqday ninkii looyarka oo Siciid noo tilmaamay wuxuu cross examination ku sameeyay 4 ruux baa muddaci wiilkayga ku ahaa asaalti baa lagu kordhiyey wiilkiiba tuuray baa leeyahay isaga mid kale dadna arrintu intay gaarsantaana maana garanayn adigu waxay socotaba wiilkii dibadda ninkii la soo dhigay ina farxadiga weyn ma jiro Siciid maanta waan duceeyay insha Allah waxaan ku soo koobaynaa ku soo xiraynaa qaybta hore Faisal Hassan MPP ah horena uu la soo shaqeeyay Siciid soona mideyntan nagala shaqeyn jiray insha Allah asagana habeen waxaan wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin caawa waad aragtaan dadkeenii ugu qiimaha badnaa ama ugu tunka waaweynaa wadaadadeenii aqoon-yahanadeenii odayaasheenii marwooyinkeenii hooyooyinkeenii gabdhaheenniba caawa halkan ayay joogaan waxa ayna u joogaan inay aqoonsadaan qiimaha uu u leeyahay bulshadeenna walaalkeen Siciid Soone anigu Siciid Soone anigoo wiil yara oo ka yimid gobolka Manitoba ayaa wuxuu ahaa taabid ninkii interviewga qaaday waxa aan ku soo biiray tiimka shaqaalaha mideynta marka anigu waxaan ahaa maaragtay part time baan 2 cisho meelahaas aan shaqeynayay markii dambana meeshii waan durugsaday marka Siciid runtii wuxuu ahaa oday runtii talooyin badan aniga isiiyay waxa uu ku shaqeynayay qaranimo taliye arrimo ma garanaysaa arrimaha bulshada runtii waxa uu lahaa amaba uu leeyahay waayo aragnimo aad iyo aad u weyn runtiina loo baahan yahay in laga faa'iideysto walaalkeen waxa uu runtii waayo aragnimadaas iyadoo oo maaragtay aqoontii maadiga tii diinta iyo haddana naxariista bini'aadanimada iyo garashadiisa oo runtii haysta waayo aragnimo fara badan marka aniga walaalkay runtii Siciid si wanaagsan ayuu markaa mideynta maaragtay igu soo dhaweeyay talooyinkiisiina runtii waan ka faa'iideystay marka waxa wanaag caawa ah in aynu aqoonsano oo maaragtay aynu caawa sida maaragtay wanaagsan inaynu inagu isku ogaano qofka wanaaga bulshadeena sida mutacadnimada leh sida iskaa wuxuu qabada leh sida joogtada ah ee uga fikirayo wanaaga bulshadeena Hassan Usman welcome بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii markaad maraakista islaamiga joogtay ama ummadda aad la shaqaynaysay dad badan baa ku soo maraya hadday wadaadda yihiin hadday ummaddaba guud ahaan yihiin adeer Siciid Soona runtii oday Soomaaliyeed waayo araga oo aan wax badan aan ka bartay weeyaan laba qofood ayaan hadda halkan ugu yeerayaa ninka ugu horeeya oo yahay Maxamed Ismaaciil Bergel Siciid anigu 2 dhinac baan ka bartay dhinaca ugu horeeya waa xagga social service-ka mideynta ayaan isku baranay waxaan hortiina ka cadaynayaa inuu Siciid yahay nin Soomaali asal ah
nin qabyaaladda necab nin bulshaawiya nin deeqsiya intaasi waa xaggii social serviceka ama inay adeega bulshada waa nin Soomaali oo dhan jecel Saciid waxaan ku leeyahay si wanaagsan baad bulshada Soomaaliyeed ugu soo shaqaysay waan ka markhaati kacayaa qaasim muddo badan la soo shaqeeyay Saciid professor kana ka ah magaalada Toronto ayaa haddana hadalka siinaya hadoole assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda waxaan u maleynayaa Saciid haddii qof nooradka ka yimid uu ammaane qof baraawo ka yimidna uu ammaane Soomaaliya qof u har ilama inuu jiro Saciid waxaan aqoonay muddo 30 sano ah laakiin labadan sano dambe ayaan si xoog leh oo almost ku dhow maalin walba isla shaqeyn wuxuu iga codsaday caawa inaan ka hadlo forumka Somali Canadian Forum laakiin se anigu waxaan jeclaan lahaa anoo forumka ka sheekeynaya inaan Saciid waxa isla soo marnay aan wax ka taabto forumka waxaan bilownay markii abaaraha muddo 2 sano ka hor howl adagana ahayd alxamdulillah masaajidada ayaa qayb weyn ka ciyaaray iyadoo imaamyada masaajidada halka maanta joogaan Sheekh Abubakar Sheekh Xasan iyo walaalkeen Sheekh Saciid Sheekh Xasan Cismaan oo si xoog leh nala shaqeeyay koodii arrinkan markaan galeynay waxaan isweydiinay horta youth violence wax ma laga qaban karaa marka Saciid wuxuu ii diray research wuxuu yiri adiga research ku fiican research soo sameey researchku waxa noo cadaatay in wax weyn laga qaban karo oo 40 sano oo research u jiro oo ka hadlay carruurta sida wax looga qaban lahaa meesha iska kala qaban weyd waxa waay dawladda iyo hay'adaha iyo community-ga iyo security services ka si iskula shaqeyn lahaayeen community-gu ku guuleystay in intaas isku xiraan arrinka waxbay ka qabtaan community aan ku guuleysan waayeen dibka waa dhex taagan markaan research soo sameeyay oo Saciid aan tuse asaga iyo walaalkay Sheekh Faisal Guuray waxa iyo guddiga oo isla arkay in aan xaafadaha tagno oo researchka aan la wadaagno xaafadihii aan tagnay Saciid hormoodu ka ahaa marba xaafadan tagnaa markaan xaafad presentation aan habeenkaa sameeyno subaxii markaa hurdada ka soo kaco telefoonkayga waxaan arkaa message uu Saciid iga tagay uu leeyahay feedback baa u baahan tahay waa inaad ii timaadaa si degdeg ah markaasaa meel tim hortan ku ballanaa meeshaas uu ii sheegaa meesha aan ka qalday meesha aan ka saxnay markaasaan ogaaday lesson 1 haddaad rabtid inaad community wax u qabatid dabagal adag in loo baahan yahay waana 10 aan Saciid ka bartay maasha Allah markaasaa wuxuu leeyahay hadda weekend inaan meel kale u socotaa markay saa ku socotay muddo bil ah oo aan daalay aan waxaan wacay walaalkay Faisal Guuray waxaan ku iri hawshu way badatay bal Saciid la hadalo hal weekend aan ka boodno markaas wuxuu ugu yiri danta guud iyo annaga aragtiya naga dhaxaysa marka meel uga harayna ma laha oo ana meesha ka wadnaa waay guddigan uga duwan yahay waxyaabaha kale annaga aan ku fakareen horta markii aan hawshan galnay waxaan u aragnay haddaan rabno inaan isku xirno dawladda hay'adaha amniga iyo community-ga in loo baahan yahay guddi aan lahayn career ambition waa in memberska ku jira aysan career ambition iyo waxaan ka wadaa inay shaqo doon ahayn oo rag sida annagoo kale oo madaxa ama caddaade ama timo lahayn oo rajo dambe aan qabin inay maamulaan tan kalena inaysan lahayn political aspiration yani dad aan rabin wax badan lagu aaday inaan siyaasad iyo waxaan ka wadno laakiin waxaan ku iri waayahana kala tusin doona haddii aan siyaasad galnay haddii kale waan idin cadeynaynaa annaga career ambition kama lihin political aspiration kama lihin waxaan rabnaa dantaa guud inaan aragno waxa kale walaalkii Saciid aan ka bartay shaqadan wax aad u muhiim ah oo markay aad u fiirisid badideen aan ognahay laakiin
si dhiib aanan u ogeyn wuxuu siciid nagu gabaabiyey inaan qof walba oo arrinkan wax nala qaban kara inaan raadino xataa hadduu qofkaas qaladaad howlgale haddaan disagreement naga dhexeeyo in qof walba oo danta guud wax ka geysan kara in la raadiyo waana tan uu siciid uu markasta samayn jiray wuxuu oran jiray qofka ha fiirin waa hore waxa uu soo maray waxa uu yiri waxa uu sameeyay waxaad isweydiisaa hadday danta guud ku jirto qofka waa inaan soo dhaweynaa waana involve ku noqonaa sidaan hore idinkugu sheegay siciid muddo badan ayuu community ku soo dhex jiray haddeerna waxaan ugu talagalnay anagoo ku hadlaya anagoo ku wada hadlayno magaca ummadda halkan isugu timid ee aan ka soo xulnay communitygeenna magaaladan Toronto sidaan hore idinkugu sheegay siciid muddo badan ayuu community ku soo dhex jiray ayuu noqday awow ayuu noqday great father ayuu noqday marka congratulations meeshaas ugu horeysay midda kale da'diisa kolbe lama socdo aniga laakiin markii aan idin akhriyo waqtiga uu shaqada bilaabay adinka ayaa xisaabta isku darsan doona taariikh nololeedka siciid muxuu insha Allah maxaan ka bilaabayaa 1959 intaan Soomaaliya dawladnimo ayna qaadanin inuu ku bilaabay shaqadiisii ahayd post office worker shaqaale oo ka shaqeeya boostada Muqdisho Somali Post oo birigaas Talyaanigu uu xukumi jiray office ayaa markaa xukumi jiray Soomaaliya 1961kii ayuu u gudbay radio telegraph operator RT waa biriga maxaa jiray biriga ma jirin wax fax la yiraahdo ama computer ama social media oo dhan ma jirin laakiin waxa la isticmaali jiray RT-ga oo ah DD TT tatat wax saas oo kale ay isku gaarsiin jireen akhbaarta markaana muxuu ka shaqeyn jiray Somali Post Office wuu ka gudbay insha Allah 1964 markii la gaaray ayaa radio telegraph operator maxaa qaadatay hay'ad markaa la asaasay oo la yiraahdo SONA Somali National News Agency oo Soomaaliya laga asaasay ayuu ka bilaabay radio telegraph operator inuu noqdo 1967 reporter ayuu noqday different level ayuu ka shaqeynayay 1974 senior reporter ayuu noqday asagoo madaxda dawladda dibadda u raaci jiray ee ka soo warin jiray akhbaarta waxbarashadiisa markii loo noqdo 1959kii ayuu ka baxay iskuulka la yiraahdo Scuola Industriale markaas wuxuu u gudbay Banaadir Secondary School markuu dhameystay Somali National University ayuu ka qaatay law degree oo qareen ayuu noqday biriga 1974kii ayuu Director General SONA oo ka noqday hay'adii oo ku bilaabay inuu telegraph reporter oo ka noqdo graduate studieskiisa Master of International Relations ayuu muxuu ka bilaabay University of Columbia in South Carolina 1984 ilaa 1986 markuu jaamacadda ka baxay muxuu dib ugu noqday Soomaaliya asoo ku shaqeeyay Director General of Information agaasimaha guud ee wasaaradda Ministry of Foreign Affairs dibadda ayuu agaasimo guud ka noqday 1990 markii dagaaladii sokeeye oo bilaabay Soomaaliya PhD studies ayuu soo baxay University of Columbia ayuu dib ugu noqday South Carolina markaasuu ka qaatay PhD studieskiisa asoonan dhammayn markaa kadib wuxuu ku soo beeray 1995ka markii la gaaray ayuu halkan mideynta noogu yimid annaga asagoo shaqo raadis ah intan mideynta uuna imaanin muxuu qaatay certificate oo la yiraahdo paralegal certificate from the Ryerson University
1994 ilaa 1995 markuu shahaadada soo qaatay kadib ayaa mideynta uu ku soo biiray 10 sano ayuu nala joogay magaalada mideynta dadkii interviewga ka qaaday ayaan ku jiray maalintii ugu horeysay laakiin waxa cajiibiyay waxbarashadiisa iyo dadnimadiisa settlement adaptation program ayaan ku qaadanay maalinka wuxuu waxa aan la xisaabi karin oo ka qabtay undocumented convention refugee class group la yiraahdo ayaa birigaa jiray dadkan aan documentiga haysan loo diidan yahay inay landed noqdaan Saciid muxuu ahaa ninkii asagoo settlement ku shaqeynaya noogu shaqeeyay paralegal affidavit u qori jiray dadka oo la cadeynaya Soomaalinimadooda kumayaal qofood ayaa landed ku helay daraadiis alla kadib Saciid intuu mideentana la shaqeynayay goobjoog ayaan ahay mataqaanaa kuma ekeen kaliya settlement counselor muxuu ahaa meel kasta ayuu inoo gali jiray Children Aid Society markii la yiraahdo hooyooyin badan oo caruurtii lagala tagay ninkii dabagali jiray ee ka soo celin jiray ayuu ahaa marka Saciid kuma ekeen kaliya hooshiisa howl badan ayuu inoo qaban jiray waxa sii dheereed odaynimadiisa iyo sidoo dadku u dhaxgali jiray oo dadka shaqaalaha mideynta isugu wada keeni jiray markuu naga tagayna anaga dhana isku wada yaacnay marka Saciid markuu naga tagay 2010kii ma una fariisanay intaas conflict resolution ayuu muxuu ka qaatay certificate from York University sidoo Sheikh Bashiir sheegay ma aragtaa markuu naga tagay kadibna muxuu bilaabay inuu quraankiisa barto oo masaajidyada ku xirnaado oo ummadii waxa uu sii qabtay intuu qaban karo waxaan la socdaa oo halkan igu soo qorin inuu qabto volunteer jobs oo aad u tiro badan wuxuu ka mid yahay board of directors of Muslim Children Aid Society oo halkan laga asaasay asaga iyo shuyuukhda halkan joogta way wada yaqaanaa maleynaa imaam Patel xaq iyo asaga iyo groupkaas inay u doodayeen caruurta muslimiinta si ay u helaan Children Aid oo gaar ah sidii u leeyihiin Yuhuudda iyo Catholics kaba inuu ay marka Saciid maxaa uu sii dheer arrimo aan anaga badadeena aanan sameeynin isbitaalada uu tagaa xabsiyada uu tagaa muxuu tagaa magaalooyin ka baxsan magaaladan ama Milton ha ahaato ama Kingston ha ahaado masaakiinta xabsiyada ku wada jiro ayuu la sheekaystaa ama uu liaison uga yahay ahalkii dhalay oo aan waqti u haynin inay u tagaan iloobay oo asaga oo halkan igu soo qorin inuu Saciid hadda ka hor wax ka dhigi jiray journalism and international relation معهد اللي يراده دبلوماسية مقدشة كتالة أيوة واحد كديجي جري سي أو بردتك دبلوماتيك نقون عيو سي وشو الشقين الهاين أيوة حسن هذا نحن كسر دوينا هذا الليدمو محمد علي كسر دو أنا ومربنا كمان هذا الولي مركا يقرأ على هذا نحريست أباي ونحريست بدني هاي idinka wada gartay marka waa qiyaasi kartaan marka ilmihiisi meesha ka joogaan dadku waxay dhaan hooyooyinkan xariis badan annagu asagaan ku carari jirnay markay islaantu xanaaqdo marka waa naga celin jiray naxariista asagaan la aadi jirnay marka runta marka aan idin sheego Saciid aabbahay ima dhalin laakiin maba aqaanba aabbaan asaga ahayn sababtoo ah hooyadayna anoo yar oo aan aqal lahayn bay dhimatay annagoo 7 ah Saciidoo markaas walaasheen qabay oo yar oo aan waxba u dhalin baa hooyadeed dhimatay hooyadeed markay dhimatay malaha walaashay waa iska ooydo dee wuxuu ka dareemay murugo markaasuu yiri maxaa jira hooyo waa dhimatay bay tiri ilmihiina ma aqaan waxaynaya odaguna waa iska guur badan marka gabdhuhu waa ka naxariis badan wiilashu marka maadaama ay u sheegtay inuu odayaashu ay iska guur badan yihiin buu yiri ka waran hadda anagu 7 soo qaadano
وفرحتي ريرين بي ملحس علم ويدي تضوّد إني وأنا لكياني أنا تضوّد أصلا كمدها نمبر كوجي يربانها هل قبر بأيجي يريد أنا مركا قف كملها وسي يربانها ما حسوسته لكن ولا يجي شيء الحمد لله أنا مركا ما بوجين بوايو وأنا إجعلايو habeenkii markaan seexanay calooshayga taaban jiray horta bal inaan dhareegsanahay in kale hadduu gaajayga dareemana wuxuu dhihi jiray kacway kicin jiray marka waa la yaabi jiray naxariistiis laakiin yaa u sababaha waxa u sababahayd waxay idinka dhan aad aragteen naxariistiisii baa u sababahay maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawo waxaan sugaynay waa khudbado iyo dardaaranku nooga tagi doono Siciid Soona haddii waa leedmo waa dhageysanay asagana haddaan dhageysano 30 sano oo idin la joogay iyo 30 sano dawladda u shaqeynay iyo intii aan shaqaale ahaa iyo intaan wax bartay iyo wixii dawladda aan arkay ayaan idin taabanaya maxaa jira 30 sano shaqeynay 15 sano kamid ah madax baan ahaa madaxda ugu dhow dadka dawladda ah marka inaan idin taabtaan rabaa أنا إذا تصو سوماليا ما أهين وحنا حتى أنهي ما أهين مركا وحنا ربا إن إذا تابت قنتوني سجال كي مركي أشغالها الدولة النقناي ماشي عن قبل الله ماشي للشيء وقت جي وجوه الرئيس للدورنا برلمان وجوه الرئيس أبوها هذا emotion يعني ضد في يوم ما أهين سان والله محجرة وحنا كل حجرنا إيطاليان يجوميس كلا waxay noo ahayd maalin waqti weyn magaalada farxadaas iyo qiimahaas aan wadnay oo qabnay anagu reer magaal baan ahayn baadiyaha laga ma qabin sayma garanay wax socday marka saas loo qaybsanay waxaan qabnay yani dad hawle qiimo leh oo doonay dowladnimada waxa noo soo 60kii anigu waa yaraa ma aqaan hadda ma idin sheegay waxaan jiray laakiin waa noolaa oo qof dadka magaalada ka mid ahaa waxaan wahaa maadaama aan boosada ka shaqeynayay qoladii ugu horeysay oo wafdigii ka yimid hadda Soomaaliland baan dhihay laakiin Noordkayga iska wadan waxa aqoon jiray waagi ayay markii ugu horeysay oo arkay taarar baan maadaama taarar boostaala ahaa taararkaan u geynaynay waxaa la dejiyay baarlamaanka meeshii ahaan jirtay baarlamaan sargududan oo hadda baabaaday ayaa la dejiyay waxyaabaha ay ugu yaabadna waxa waa afkay ku hadlayaan baan garan waariyaahe midba midka kale u qeylinayo qaarna waxa la dejiyay halkaas qaarna magaalada dhowr hotel ma lahayn shabeelle ma jirin Juba ma jirin halkaas la dejiyay laakiin ayaguna waa nala yaabeen annaguna waa la yaabna halkaas aan ku keen waxa keenay oo badi ayaga akicina annagana aan si aad u aqoon waxa ahayd 56 ba hawd ayagoo soo jeeda la wareejiyay ودرس بيلين وأركا واحد عاي وحا 56 أيها حيل سلاس أنتو قرب محايد قبر الدهرين أيوه كيري ورياي سومالها داتين وربهوين تنسوقل هذا سوالوي وحنران بهوين تنسوقلوا ما إثيوبيا وقيبتنا كقات عري نقصي كردنيس مركا لكن عرضين واكلا بدني مور ناشوناليست ودن المدى وحم حاجرة qofku hadduu xuduud la leeyahay balada kaaga dhow kaaga jacayl badan waad ogtiin Soomaalnimada waxa aad ugu reer magaalkeena iyo qoladaas reer baadiyaha dadka kale waxay ka ogaayeen malaha waxa 60kii marka la qaadanay meel secondary la yiraahdo ma qaanada waxay magacooda secondary la jirano wax loo bixi ma qaana ayaa calanka laga saaray calanka la saarayo ma ahayn anagu kaan haysanay wuxuu ahaa kii 6 bari ka hor laga saaray Hargeysa oo ka nasiib ka saara lahaa ayaa la keenay ayaga raggoodii baa soo saaray calankaas ayaan waxaysanay markiiba Itoobiya aad bay arintaas u dhigtay Soomaalidii oo wada qeeraysan maxaa jira waxa anaga dhigteena ku jira iyaguna dhihi jireen manilk markii Soomaalida qaybsanay inuu yiri yaani Soomaali ma aha wax nation liireedo ma aha وقبائل اسنعب حلا waxa kaliya aaminsan yihiin Itoobiya loo yar u yahay halkaas boqortooyada iyo boqortaan u yihiin caradaas ayadoo qabo ayay dhacday
63 waxaa dhacday Ethiopia marka uu qaadan waayay inaan midowno oo mid nahay oo wuxuu sheegay dagaal ba ka soo qaadeen waxaa iskugu keen aaday dagaalka markuu soo qaadayay in westiga dalalka ay ku dajiyeen war kuwaan mar dambe isku madareen maxaa jira ayagiina waa nala yaabeen asagiina waa naga baqay dagaal buu soo qaaday isla waqtigaas 63 waxaa la dhiibay NFD oo soo jeedo 80% ay leeyihiin Soomaaliya rabnaa ballan laga qaaday Ethiopia inaana Soomaali midnimadii sii wada maxaa jira wax loo adkeysan kara ma waxay markaas isbedelay Cabdirashiid Allah u naxariisto Prime Minister buu ahaa waxa uu raajay inuu yiraahdo war dad baan ka haystaa ummad baan ka haystaa dalal baan naga maqan dalalkii westiga wax yiraahdeen dhageysta adduunkan sidaan u xaalad waxa la idin ogol yahay saddex dal baa idin la shaqeynaysa Ingiriiska maxaa Mareykanka Jarmalka iyo Mareykanka iyo Jarmalkii kale Talyaaniga ciidamadoon intaas ka badan karaan war hadda nin baan ugu soo duulayo nin baan hadda la qabsanaya maya taasaan ku xiray markaas waa marka anagana siyaasadda isbedeshay sidaan west oo inaad cadda Allah u naxariisto asagu nin wuxuu Taaliya ku koray oo qiimaheeda yaqaan westiga maxaa jira waxa labada lagu kala yaqaana westiga waa dimuqraasi isbedbedel laakiin shuuciyada hadda tagtid ninkii madax noqdaa waa dejinaysa hees baa ku xigta marka anagu ma rabin oo diyaar maahayn diin ahaan iyo dhaqan ahaan dad furan baan ahayn laakiin qasab mar hadii loo diiday ayay noqotay dawladda inay ku dhaqaaqaan waxa la igu goostay Jamaal Cabdi Naasir ayaa buntuqa yaraad Hakiim ka nasiiyay waa xukunka buntuqa aan iskaga celinayn Ethiopia markay iskaga ma celin xoog aan lahayn laakiin waxay la yaabeen inaan meedka qaadan weyno qabiiladeena anagu isku sii jeesano ma noqon waa iska celina waana jaban wuxuu ahaa Cabdirashiid inuu yiraahdo election baan ku jirno doorasho wuxuu yiri doorashada hala baajiyo lama baajinay gacanna waa codkan ku bixinayna midna ku dagaalamayna marka halkaas yaani ahay waxaan ahayn marka waqtiga waxyaabo marka ugu horeeyay Soomaaliya aan ahayn ilaa 67kii dad soo kacay awood badan ismidan midnimadooda haysta raba inay soo celiyaan bal arka Ingiriiska markuu naga goostay waxa uu badnaa yaani Somaliland ayaa u badnaa dadkii goyn caadifada seenooyis waa xiriirkan u goyn wuxuu rabi lahaa inaan Soomaali hadaan nahay aan Commonwealth ka gallo oo maadaama anaga yihiin dhibaatada marka dawladnimaan haysanay koortiyaal baan lahayn joornaalaan lahayn waxa dimuqraasiyada la yiraahdo dhan baan haysanay doorashadii ugu horeysay 67 Cabdirashiid uu bedelayay aad labadaba Allah u naxariisto waxay ahayd taariikh Afrika oo dhan laga xuso dawladda kaliya oo si nidaam la isku bedelay markaas ka caan baa bilowday markii ninkii ku dhagaabo waa ka fuq waay laakiin waa bedelay waxaan 1967 waxaan noo yimid Kenneth Kaunda oo markaas madaxweynihii dhisay Zambia wuxuu la yaabay cashadii marka loo soo dhigay aadan cadde iyo Cabdirashiid isaga fadhiyo oo qoslay markaas uu this is waxaan anagu jeclaanahay inaan noqon sidaan aan sharafta loo hayay laakiin maxaa markaas jiray nimankeenaas xoog galahoo magaca leh alaabaheennii baan wadan waxaad la yaabaysaan wasiirkii yimaadaba reerkiisu la yimaada maxaa jira hadda wax kale ma leh barru doorasho rabaa waa inuu cid iska dhaqaaleeya corruption baa jiray aan ila loo dayin accountability ma jirin waa markaan sigisaba gaarnay doorashadii si loo galo xisbiyaal baa la furay dimuqraasiyad aan galayna 80 xisbi ayay gaareen ilaa calaamada la waayay mid dab midna biyo midna ceel calaamad baa la waayay 80 baa gashay doorashadii corruption intuu gaaray ilaa kulligood 80kii intii ka soo baxdo la soo doortay xisbiga laga isku tagay maxaa jira meesha dadka lagu dhacay oo lagu boobay corruption salka ah halkaas marka ku damnay waa 69kii ka caan ka dhashay oo feestadii waxaan isleeyahay masuqmaasuq iyo adduun oo ka xorooday bas way anaga kuwaas la tuuray dawladnimo security xoog leh corruption kii oo la qabtay waa markii ugu horeysay wafuud la diraayo xamar intay ka tagaan
gobolladana soo wareega oo qof walba wuxuu samayn jiray iyo meeshuu mari jiray ay soo qabanayaan niman isku xiranoo oo haysan arrimaha yani boolisigeena iyo siyaasadda dibadda cirkaasay marti waana la barta buufuud baa noo timaada nimankan afrika inta kale annagaa xoreynay oo yani ciidamo annagu aan leenahay ayaa tababari jiray mozambique iyo tegi jiray angola iyo dagaalka westiga dhan waxa uu ka cajaa'ibiyey annagii annaga shuuciyada gallay oo markii maanta hub kalaan rubnaa annaga waxa noogu weynaa wuxuu ahaa shanta Soomaaliyeed inaan gaarno maxay noqotay meesha ugu sarreysaan gaarnay Africa 1973 waxay ahayd taariikh yaab leh maxaa jira waxaa madaxweynuhu diiday inuu aado shirka oo idin waa fadhidaa oo idin hadda markaas waa markay cusub tahay markay xoogaa bay soo socotay qiimo weyn bay leedahay wuu diiday inuu aado wuxuu yiri ajandada in lagu daro Soomaaliya arinteeda maahin oo dhulalkan la ka haysto Ethiopia naga haysto Ethiopiankuna wasiirkooda arrimaha dibadda isla maalintaas wuxuu yiri wax aan qadiyad aan ka wada hadlay ma jirto ayaga laftooda Ethiopian oo aan sii deyn iska daayna wax deyn waxaynu Afrika waa shirku socon way waxa la soo diray madaxweynaha Nigeria diyuuradiisu soo diray in madaxweynaha qaado laba shardi uu codsaday mid waxa weeye arin ajandada lagu daro mid kalena next year 74 ka in Soomaaliya lagu qabto anagu diyuuradii waxaan ka raacay maadaama ha madaxa Soomaaliya Ethiopia markaasaan tagnay waa markii ugu horeysay xeelad salaasaha live oo arkay aan salaamay biyar waxaan iskan waa ninka qatarka codka weyn tacbaan uu ila noqday aan saasa ay hob inaysan dhageyso reeyay waxay noqotay special arintii waa la qaatay waa looga hadlay 74 kiina waydi oo iyadoo dhan isku timid Muqdisho meelan kala geeyna mar guriyaha dadka la geeyay waxaan maraan sheekeysanaynay doctorka gurigooda dadkii dhaqnaabo ahaayeen wafdi baa la geeyay وفودي قار كمية أيام لكي قريه بقول توتي قادي ويا وشرف أنجارناه وحا أهيد أفريقيا إلى المامور له وحا أهيد أورو اللي شر اللي يجري وحا لقبتي شركي لبعض أفريقيا لأن يدك مدو لأن يا فستك لو سمي مشروع أو أرتي لصوب النجاي يدها إلى كان لصوب النجاي وفدي سوماليا aan abdi waxaan hogaaminay wasiirka arrimaha dibadda Umar Arte anigana waxaan had warfaafinta ayaan matalay labadeena madax u ahayn waa bari ayaan la socotay ninkii tiyaatarka madaxda u ahaa nala socday dayuuradda aan raacayna dayuurad baaylootiyaashu waxay ahaayeen Soomaali anagoo dhan markaas Afrika waxaan ka bilownay Zambia 6 dal baan sii marnay Rwanda Burundi kulligood baan marnay ilaa aan ka tagnay Lagos waa midii anagoo wabdiya naloo ogolaaday inaan Lagos ka tagno Kaduna oo meesha islaamka nala geeyo basasna la siiyay qofka markuu dhimanayo wax kale weey Umar Arte oo madax noo ahaa dawladda soo raaca wasiirka ah aniga oo inta kala watay inaan la raaco baska baa wax iga dhul jecel lama oo waxaan jeclahay magaalooyinka arko habeenkii baan xanuunsaday baabuurka meeshaan ka raaci lahaa nimankii raacay ninkii wariyaha ma aqaano madaxdu ahaa magaciisa ma xasuusto iyo 5 wariyaal iyo ninkii baaladka ku xigay intiiba baskii intuu hurdooday ninkii wadi ayuu ku xijaabta halkaas يعني فاستك بعيد that was يعني halkaas aan gaar laakiin gudihii maxaa wadi waxaan horaan wadan qabiilka soo laabtay corruption-ka soo waxaysnay raadkeennii waan ku laabanay waxay dagaalkii waa nagi galay dagaalku markuu dhamaanayo oo nala de ruush iyo balaayo dhan baa soo duushay annaga ma ahayn wixii dagaalamay jabhaday ahaayeen oo jabigay adinku ma dhawa garan kartaan wixii joogay wafdi waxaa warfaafinta wax meel hubnaga qolo wastiga waa naga xirmay shuucidii waa ka tagnay meel dhaxan soo istaagnay China ayaa dawladdu fikirtay in hub laga doonto loo tago waxaa loo diray wasiirkii warfaafinta Cabdi Qaasim anigu wafdigan ka mid
يعني waxa cajaa'ib kale anagu waxaan leenahay maxaa naga dumiyay ninkan wuxuu noo sheegay wuxuu aan u tagnay madaxweynihii ayaa naqaamaray sida naloo qiimeynayo ninkii markaas haystay magaciisii doctorka Deng Xiaoping waa ninka China-da maanta siday taa ka dhigay waa ninka China u soo jeediyay waxa shuuciye ahayd waa adkeyd balaayo ku sameeyay ninkan wuxuu yiri hanti wadaag Soomaa wuxuu yiri ninka mukulaasha midda madow iyo midda cad asfaar ay qabanayso shaqadan ka rabnay waa okay xisbi wama xirna ninkii soo dejiyay nin cabqari oo Faransiis iyo adduun wax ku soo bartay philosopher buu ahaa wuxuu yiri waxaad yeelaysaan talunisi wuxuu yiri maantay jab weyn baa idin gaaray waxaan idinku gaaray qolo eastna lama haysataan westna lama haysataan waana idin qaban waayay wax dhibaateen wixii anaga hub yar waa idin heynaa laakiin waxa idin ma tarayo waxa idin sheegaynaa maanta madaxweynaha waxaad iga gaarsiisaan fariinta ah dal ciidankiisu soo jabay oo saano kale u jabay dawladdiisu sii ma jirto ay change sameeyo bas bedel sameeyo waxaan qabaa horta aasaaska halkan ka soo gal halkaasi ahay ma la sameeynin waxayna iska sii wadanay haddii wixii ka soo baxay waa ogtiin maanta in idin noqoto taariikh aad ku xasuusataan wadaadkii 70 jiro noo yimi mar inaad ku xasuusataan wax ku qabsataan khayr Allah idin siiyo Allah idin barakeeyo salaamu calaykum